السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا له نوجر ولا شينا يوتيوب ولا شيء ورسن شيخ وجنال كيجي سيروق شيخ إن شاء الله واي إن شاء الله كسو دواذا قعمة ما شاء الله فرن وتبارك الله وجه فرن ومالتي سافئة. كوغاد inkastoo baranbaro aan kusoo biloobay laakiin caawa waa guriga lagu sameeyey guriga cashaladan ما شاء الله ولا شيء waxaan ku leenahay soo maasha allah dhawow tabaaraka allah waxaa kale oo horta hordhaci ah oo aan sii sheegayaa anigu waa warsan sheekh maxamed channelkana waa channelkii sayroq sheekh maxamed oo isla aniga ah insha allah biidnillaahi alkariim barnaamijyadayda halkan baad kala socon doontaan haddii rabbi raalli ka noqdo wax alle wixii ilaahay iga garansiiyo iyo wixii markaas aan rabo inaan ka hadlo si aan idinla soo socodsiiyo إن شاء الله insha allah biidnillaahi alkariim hadday gabayo noqoto hadday baraambar noqoto hadday wacyigelin noqoto intaba insha allah biidnillaahi alkariim intaa kala socon doontaan waxaan runtii aada ugu mahadcelinayaa maadaama ay runtii gabdhuhu igu gaadeen tartiib hoosta layga soo geliyey maxaan ku rahdaa in youtube-ka maanta la sameeyo oo la hirgeliyo maadaama la yiri warsanay waxaad kasoo muuqatay janalo badan janalkii ayaan luul kii caashaladan كيف kii firdowse ismaaciil maadaama aan kasoo dhex muuqday waxaa laygu yiri youtube-kii kama maqnid mar walba ana la socotaa haddana magaciisa waxaafta inaad wax furatid marka mid adigu leedahay inaan kuu waa sameeyno inaan kuu sameyno saasna aad kusoo geshid waxaa kale ayadana dhiirigelin weyn ayadana runtii isiisay oo ayadana ay tiri ku soco waanan kula rabay runtii inaad soo geshid walaashay abwaanadeenna qaaliga uga ah kowsar keef ee joogto maxaan ku rahdaa edmonton maxaan ku rahdaa degan ayaduna aad baan ugu mahadcelinaya runtii mar dhow iyaduna janalkayga runtii way kasoo muuqan doontaa codkeeda waad ka dhagaysan doontaan insha allah waxaa kale oo ayadana runtii aan halkan uga mahadcelinayaa oo ayaduna abwaanad qaali igu ah ee walaashay cosab dhayman oo joogto dalka Masha kenya gaar ahaan nairobi ما شاء الله والله له abwaanad الدمان weyn oo qaali ah waxaan leeyahay madaxaaga kor ilaahay ha ku sharfo aad baan kuugu mahadcelinayaa runtii caawa waa habeenkii koowaad ee aan ويوتيوبك soo gelinayna loo kilibka soo ugu horreeyey loo live soo xirxirtay loo soo فيديو loo fariistay soo fariistay ما شاء maasha الله allah tabaaraka allah waxaan leeyahay walaalahayga qaaliga ah ee iigu jira ee sharafta badan ee karaamaysan ilaahay ha idin barakeeyo allah ha idin sharfo allah ha idin xafido allah ha idin dhowro inta iigu jirta ee sabiskaraabka ii ah iyo inta kaleba iyo inta ii soo socotay ee hadda ii imaan doonta ee gadaal iiga imaan doonta intaba allah ha idin barakeeyo allah ha idin xafidfaydo kusoo dhawaadaan kusoo leenahay dhawaada channelkii sayruq sheekh سير وشيخ إن شاء الله inaad horey u wadaan horeyna uu u socdo insha allahu biidni illaahi alkariim aad iyo aad waxaanan runtii ugu mahadcelinayaa dhammaan dadkii markii saa aan u sameeyey isla markiiba ii wada saaray sabiskaraabkiisa runtii maasha allahu tabaaraka allah allaha raxmaanka ah waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer iyo cibaado suuban aniguna waxaad iga heli doontaan wax alla oo idinka idin farxad geliyo wacyigelin ha ahaato برامبرة buraanburo ha ahaato abwaano oo maxaan ku dhaha rag iyo dumar isugu jiraba ha ahaadaan insha allahu biidni illaahi alkariim aad halkan ka dhagaysan doontaan ilaahay idankii buraanburadeennu qaybo badan bay noqon doonaan إن شاء الله waaridkay ku saabsan tahay waxay ku saabsan tahay wacyigelinta bulsho weynta soomaaliyeed oo dhan waxay ku xitaa qabiil lagama weynaayo in lagu ammaano qabiilada soomaaliyeed oo dhan in maxaan ku idhahdaye waalidiinteenii oo dhan aan ku ammaano ugu duceyno ama gabay ha ahaado ama buraamur ha ahaado intaba insha allah biidni illaahi alkariim rabadaankii oo soo socdo buraanburo loogu talagalay sida walaashay kowsar keef oo kale buraanburkeedii quruxda badnaa ee ay ku soo dhoweysay rabadaankii hore asagana laga soo deyn doono insha allahu biidni illaahi alkariim aan anigu weliba ka codsanaya inay soo dayso ilaahay idankii keeda hadday kasoo daysiye keyga hadday kasoo daysiye kan caasho haddii laga soo daaye kan haddii firdowso laga soo daayaba maxaan ku idhahdaye caawa waxa naga maqan فردوس firdowse ismaaciil
oo runtii lahayd kiliibkaas yaan laygala hormarin laakiin caawa nasiib wanaag carabkeed ma noqon insha allah markii la sameynayo youtube-kan la furayo waa la jirto waan isla sameyno wixii dhan gurigii lagu sameeyay joogta abaayo caawo aad iyo aad laakiin nasiibkeeda ma noqon caaway naga maqan tahay laakiin booskeeda anagaa buuxinayn insha allah anaga u hayno waxay dhihi lahayd anaga dhahayna insha allah biidni illaahi alkariim tan labaad walaalaheen maasha allah kusoo dhawaada waxaan halkan ka saa walaashay kowsar cave maasha allah soo dhow abaayo maasha allah aan walaashay kale janal ay leedahay insha allah janalkeeda waa in la booqdo in la soo booqdo waa insha allah waxaan leeyahay gabadha kale waa afwaanada walaashay cusub dhayman cusub insha allah adigana baay waa ku salaameynaa insha allah meeshaa joogninba meeshuu jooga allaha ku ilaahay ku noolyeelo amaansado insha allah walaashiina caawa magaciisa waxaa loo sameeyey youtube aad magaciisa kala xiriiri kartiin anytime insha insha allah marka hadduu ilaahay idmo si noogu furmay waa hadda kadib ahay halkan waa wada sheekaysi wada hadal wada socod borgram intaba runtii insha allah waxaan isku dayeynaa inta ugu badan in uu janaladaas ay ka soo galaan borgram hadduu noqdo kii oo fardowso ha noqdo insha allah keyga ha noqdo cashaladan ah cashaladan borgramaan ku leeyahay oo mar walba soo geli doono insha allah biidnillaahi alkariim qofta la dhaho fardows ismaaciil borgram ku leeyahay insha allah iyadana waqtigeesu soo geli doonaa furi doonaa insha allah kaygana insha allah dari doonaa iyadana borgramka kowsarna borgram loo furi doonaa insha allah biidnillaahi alkariim haddii rabbi u raalli ka noqdo biidnillaahi raxmaan way kasoo gelayaan janaladaas oo dhan waa ka daawanaysiin afarta janalba way kasoo gelaya hadduu ilaahay idinkii biidnillaahi raxmaan waxaan rajaynayaa is araggeena intaas iyo inka badan inuu noqdo friends aan dhaafno family aan noqono insha allah biidnillaahi alkariim qof walba waxa uu family ah qofkii inta markaas janalkiisa ku xiran waa familigiisii waa familkiisii waa dadkiisii waa asxaabtiisii taasaa been marka insha allahu friends inay dhaafto oo family ay tagto baan ilaahay ka rajaynaynaa biidnillaahi araxmaan annahankayga iyo himiladayda ay horay u kacdo iyo saan meeshaan rajaynayo nin walbana hadaf buu leeyahay nin walbana meel buu rajaynaya allah raxmaanka ha gaarsiiyo ilaahaygii raxmaanana waxaan ka baryayaa rabadaankaa soo socdo inuu khayr iyo barwaaqo nagu gaarsiiyo kuwa ka faa'iidaystana ilaahay inuu naga dhigo kuwii lagu dembi dhaafayna ilaahay inuu nooga dhigo kuwa maxaanku yahdaa cimri dheer oo cibaado leh ku helayna ilaahay naga dhigo annaga iyo intii islaan ah cudurkan wareeganayana allah raxmaankaa naga dulqaado ku soco caasho maasha allah walaashay waxaan ka hadli leeyahay walaalaha walaashay ugu jiro haddana waxaan leeyahay kuwa dambe gadaalna ugu soo galayn waxaan leenahay soo dhawaad mar kastaba insha allah biidnillaahi welcome aydan leenahay subscribe-ga like-ga share-ka commentiga xagiina waa anagana soo galowga aan leenahay wax sheega iyo wax sheego ahey wax sheega waa xaggeena idinkuna waxaa leedihiin insha allahu inaad daawataan sabscribe-ka noo saartaan like-ga noo saartaan na dhiiri gelisaan insha allahu biidnillaahi alkariim janalada waaweyn ee ummadda soomaaliyeed dhammaantood u wada furana waxaan leenahay horey u socda guul iyo gobonnimo aan dhammaanin ilaahaygii raxmaan ahaa ayaan idinkaga baryayaa biidnillaahi alkariim insha allah waxaan kaloo leeyahay janalkii walaashay ayaan luul horey u soco adigana guul iyo gobonnimo insha allahu biidnillaahi alkariim youtube-ka wuxuu ku fiican yahay wada sheekaysiga wada hadalka ilaahay iidankiis anuuna kusoo casumi doono dad badan oo aan jeclahay insha allah biidnillaahi alkariim waxaa ku daraysid insha allah anagoo soo gabagabeyneyno hadalkii insha allah waxaan leeyahay walaalahayga sidaas iyo nabadgelyo salaamu allaahi calaykum